صلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا ولا فربنا فائدنا ولا فائدوين كيس waxa kamida toddobadan arimood marka uu horeyso qofka nabiga ku saleeyaa wuxuu faa'iideeyaa ilaahay amarkiisa inuu qaato ajrigi allana uu helo akhlaaqdi ilaahay iyo malaa'igtana uu qaato ila nabigu wuxuu takhalluqu bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisa qaat ilaahay iyo malaa'igtiisi way ku saleeyeen marka hadaynu inaguna ku saleeno rabbi baynu ku raacnay iyo malaa'igtiisa waxa uu qofkii faa'iideeyaa inuu 10 jeer ilaahay ku saliyo qofka nabiga ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ilaahay malaa'ig ilaahay saligiisuna waa inuu naxariisanayo adoonka ama uu amaanayo الثناء عليه في الملأ الأعلى بيننا يمد قاركود عالمك كره ayuu ilaahay ku amaanaya iyo malaa'igta dhexdooda marka inuu ilaahay ku amaano 10 jeer ama uu ku naxariisto wax weyn weey waxa labaad oo lagu helayaa shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo abaalaynu ku qabno qofka markuu muadinku aadaamo intuu yiri oo kala ka daba yiraahdo igu saliya halat lahu shafaacati shafaacada u suganto waajibtay buu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa ka faa'iido hamigu ilaahay kaga yareeyaa qofka هموم بدن بين حنبارسن هايو وحبا inagu si ah culaysyo badan baa dadka saaran iyo diiqado waxyaabaha ilaahay uu ku fududeeyay ayuu kamid yahay saliga nabiga asxaabigi Ubay ibn Ka'b markuu nabiga ku yiri waqtigayga saligaagan ku qaadan hamigaaga la kaafiib hamiga laga dul qaadi waxa afraado aynu ka faa'iideynaa waa sabab liqurbi al-'abdi minhu yawm al-qiyamah adoonka uu ka sali badan yahay buu nabiga ugu dhowiyay maalinta qiyaamaha awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salah wa hadith sahih at-Tirmidhi ku sugan maalinta qiyaamaha cid ay ugu dhowi waa cid ay ugu sali badan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa shanaad oo ka faa'iido ah waa sabab raddi rasuul sallallahu alayhi wasallam fi raddihi waa inuu nabigu ka qaado ay sabab noqonaysaayo ما قف كستو igu saliye buu nabigu saligiisa markuu igu saliye ilaahay ruuxdaydu ii soo celinay ana ka qaadaya marka nabiga sallallahu alayhi wasallam siga ku jawaabaya riwaaya kale waxa ama xadiis kale isaguna saxiixa inna lillahi malaa'ikatan sayahina fil ardi yuballiquni as-salama min ummati malaa'ig dhulka wareegaysa buu ilaahay leeyahay oo qaabilsanun inay saliga ummadu igu saliyaysa aniga ay soo gaarsiiyaan xadiiskaasina waa saxiix فوائدك waxa kamida ducadaada in la aqbalo waxyaabaha caawinayo kamid yahay inaad saliga ku soo khatinto wa khitaamu misku ninba ducaysay ayaa tukanayay ilaahayna ma amaanin nabigana kuma saliin nabigu wuxuu ajila hada kani uu degdegay wixii ducadiisa lagu aqbali lahaa muu yeelin istawa saxiix waxyaabahaas maalinka jimcaha inaynu sii badino nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadana wuxuu inoo sheegay in warbixin lagu siinayo saliga ay ugu saliyaysan badiyo maalinka jumcaha fa inna salatakum ma'rudatun alay hadithki sahih abi daawud ku sugnaa saligin wala yardinaya meel kasta caalamka joogo telefoonada ilaahay baa nabiga ku rakibeen hebel baa kugu saliyay hebel baa kugu saliyay hebel baa kugu saliyay taasay ugu soconaysa faa'iidooyinka iyo kuwa kale oo badan ayuu leeyahay